dhageysiga waraysyada aad kala socotaan Horn Africa website waxa idin sahashay shirkadda xawaalada dahabshiil waxayna xawaaladiina idin geynaysaa meesha dunida aad ka doontaan بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan qodobada wararka caalamka caawa Afrika dii sano waxa ugu waaweyn mas'uul u hadlay maxaakiimta islaamiga ayaa beeniyay in maxkamaduhu ay duulaan ku yihiin magaalada Kismaayo iyo dhammaan maamulada ka dhisan dalka shirka isugu yimaadeen xildhibaanada siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha reer Xaaji Saleebaan loogana hadlay wada shaqaynta maxaakiimta iyo beeshaasi ayaa lagu magacaabay guddi ka kooban 23 xubnood haddaba ay ka qayb galeen xubnihii golaha maxkamadaha oo qayb galay shirkii Khartoum aqoon-yahano iyo saraakiishii hore ciidamada loogana hadlayay halka loo gudbayo kulankii labaad ee maxkamaduhu ay la soo galeen dawladda diyaar garowga kulanka saddexaad iyo aragtida maxkamadaha ciidamada shisheeye kulan ay maanta isugu yimaadeen mas'uuliyiin ka tirsan golaha maxaakiimta islaamiga iyo ururada haweenka gobolka Banaadir ay haweenku ku dalbadeen in laga qaybgeliyo maamulka golaha maxaakiimta islaamiga kulan looga hadlayay doorka ururada dhalinyarada gobolka Banaadir ay wada shaqeyn markaa ku dhex mari karto golaha maxaakiimta ayaa maanta ka dhacay hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho dagaalyahaneen shisheeye oo taageero ka helaya shabakada Al-Qaacida ayaa lagu waramayaa inay Soomaaliya u soo ambaxeen gudoomiye ku-xigeenka isbahaysiga dooxada Jubba ee taliyaha ciidamada isbahaysiga ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee gobolkaasi Jubbada Hoose xilli la sheegayo in diyaargarow adag la geliyay ciidamada isbahaysigaasi golaha wasiirada xukuumadda federaaliga ayaa kulankoodii maanta isku raacay qorshaha ay ku shaqaynayso xukuumadda 6 bilood ee soo socoto ilaa aanay weli xukuumadda kalsooni ka helin golaha baarlamaanka gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku eedeeyay hay'adaha gargaarka ee ka howlgala gobolka inay ka gaabiyeen wax ka qabashada fatahaadaha soo ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay markaa gacan ka geystaan ka hortagga fatahaadaha tartankii sanadlaha ee kubadda cagta ee lagu maamuusi jiray maalinta nabadda caalamka ee 11 Sebtembar oo galabta si rasmi ah u furmay tuulada Soos ee magaalada Muqdisho qabshado xooggan ayaa ka jira koonfurta magaalada Siyool ee xarunta waddanka Kuuriyada Koonfureed kadib markii boqolaal qoys oo ka careysan qorshe lagu burburinayo guryahooda ee booliska ka hor yimaadeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Spain waxay shaaca ka qaadeen in dadka tahriibka ku soo galay dalkaasi ay sii kordheen xilwaayadii ugu dambeeyay